adkaatay ayaan maqli jiray wallahi siyaasadii waa adkaatay waliba xasan sheekh maxamuud sanad iyo dhowr ka bilood oo xukunka uu fadhiyo waa habeen kamid ah habeenada ugu daran waa caawa maalmaha ugu daranna waa beri dambe ninkii aadan madoobe ahaa gudoomiyaha baarlamaanka fariimo u qeybiyay xubnaha baarlamaanka uu ku leeyahay waraajandayaashii hore isla xisaabtanka baarlamaanka annagaanu lagu mashquulinayay waqti baanu laga dilay filinkaas ay baa cunay alaab maqaaxi kala furanaya midna maqaaxida furan waa berito stakeholderada dhammaan waa imaadeen xasan sheekh maxamuud kulankooda beri buu furmaya 12 bisha July ku beegan anna maqaaxi kala ka ag furnaya oo maxaa ka hadlaysaa aadan madoobow dadka Soomaali waa yaaban yihiin wax iguma soo dago waxna imaba seegaan caawa idin sheegaya ilaahay baa garanaya wuxuu bari ka hadlayo aniga waa garanaya halka loo socdo waa sii sheegaya geediga meesha ku dhamaan doonana idinka sharaxan doona qaybta koowaad ee barnaamijka ayana ku qaada dhigeenaaye Umar Abdirashiid ra'iisul wasaare hore sidoo kale ra'iisul wasaare hore Abdulli Gaas ayaa xamar maanta soo gaaray saddex qodob oo muhiim ah bay ka dhawaajiyeen maxaa ka jira in diyaarad ayaga sitay ama waday iyaga ay shil gashay qaybta labaad ee barnaamijka ayaynu ku qaada dhigeenaaye ninkii Mahad Salaad Maxamed maqaldana Mahad Salaad ninkii nisaheysay ya horta wuxuu gacanta ku dhigay dhammaan gobolka Gado bilaa dhiig wax dhiig ku daatana ma jirto waxa ugu dambeeyay ninkii la fay ahaa ee gudoomiyaha degmada Doolow maanta wuxuu xiraal ii sheegay ninka liira Anjeex oo wasiir dawle Jubbaland u doona rabay dhammaan degmooyinkii gacantu ku dhigay marka laga rabo Doolow oo Ethiopia siyaasad kale ay ka karkarinayso qaybta saddexaad ee barnaamijkan ka dhigan doonaaye afaraadna waa entertainment yalla tan waa ila qosol reer dhano inta meel soo istaaga daarood la yiraa jihaan baa fadhiisatay jihaan shaashkiya ka dhacay jihaan way socotay jihaan xasan sheekh weel lugeysay reaction ka bixinaa gabar ka waran waxa kale oo igu daran sawirka ma aragtaan guri anakuru amanuru u leeyahay oo Nairobi isaga yaalo ali roob la dhisano imina amakuru ananuru iskale hadii la rabtaa booska iskale ya hadii la rabaa kaftame koofiya iskale waska kaftintaasna saabay iskale hadii la rabo lama yaqaan markaas waxa la leeyahay roob la iskale roob le ha musuq lagu dar roob le entertainment tigaasna karbaashkeeda leedahay الله حالك سياسة الصومالي عاواتك او بريكا درنا وربريد دنبك سي درنا حالك واي ورتصاد لا سعودتان عاوا وقشك واسي دينيا مدحوينها وحو عسومي ستيك هولر وحليلا اما سامي لي السياسة الصومالية لابا اجدو لي اليهين ايو اساقن هل اجدو لي إلا وحنا نشاقنا وصومه واي مادين wuxuu kala hadli rabay furitaanka dastuurka Soomaaliya halkay u dhaqaaqayso ma doorasho qof iyo coda ma teendadiya halkay loo socdo horto xaajadaas ayaa horta la ragaasato gudoomiye baarlamaankina maalmaha waxay ku mashquulsanayeen doodisha soo qabo wasiir TikTok soo qabo wasiir hebel soo qabo wala mashquuliye maqaalin baa loo tuurto waa ku dhageen gudoomiye haddu waa ku bari aadan madoobe warka waxaan oo dhan soo koobaya aadan madoobe fariin uu qeybiyay baarlamaankiisii wuxuu yiri nimayo ajandaha waa bedelina ma ku soo qorin meesha laakiin waa sii ogaa aniga iga qora habeen dambe iga qora meesha u socdaan qanani wuxuu marka hore yiri khudbad jeedinta gudoonka saa hadli doona waaba duu xanaaqin ninka hadii laba qof ee mikrofon qiiqi ku tira hadalka inta ka dhumo iska tiituuraaba ajandihi hatta waa ilaabay meesha u socday sidis kale waa arag nin khibrad badan oo laan dheer ah oo soo jabo way laakiin nin dulqaad badan ma baarlamaanku isugu yeeray marka wuxuu rabaa soo sheegay wuu laalay ajandayaashii wuu laalay adiga marka hore asaga khudbad jeedinayo marka dambe wasiirada cusub la dhaarinaya alaabta dambe ajandayaasha la qeybinayo waa doorashada qof iyo cod ee golaha wada tashiga qaran xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisii ay ku heshiiyeen horta waa diidi doona ama bari hadiido ama qabi inta uga tago arbacay khamiis mid hadiide ama maalin kale hadiide wuu diidi doona campaign-kaas buu karkarinayaa horta odaga waaya halkaas horta xaaje mareysa markuu diido nin laan dheero oo wax diiday asi xasan ay soo agfariisanay taas gadaal dama ugu daraya qodobka marka horta saas uu socdaa asaga dagaalkiisa waa cadeysay oo dagaalku xasan sheekh iyo ninka liira aadan madoobe banaanku yaala madasha
maxay ka wada hadli rabaan horta niman yaani warka kuma dheeraada ma jecli 40 daqiiqo hadli karaa dulucdan jeclahay muhiimadan jeclahay madasha way imaanaysaa inkastoo farmaajo uu yiri kulamo hore loo qorsheeyay Biden baan ku baaqday soo ma socon laakiin cidda kaliya isfahansan ma taqaanaan wallahi waa farmaajo iyo xasan sheekh waxaan oo kale dhan waa dhunsan yihiin farmaajo iyo xasan bisa kaarta isla ciyaaraya waaya sidii afayeen u hadlay asaga farmaajo BBC u sheegay duqa cabdirashiid duqa waaya nimankan horta nimayo bari waa la is arkaya xasan cali khayr waa yimid cumar cabdirashiid waa yimid ninka la yiraahdo cabdulle gaas waa yimid sheekh shariif waa joogaa cusable waa joogaa adiga wixii dhamaa horta ujeedada leeyihiin nimankaas waa labo waa midda koowaad inuu aqoonsi uu siiyo in niman stakeholder yihiin oo siyaasadda gudoomiyaal hore baarlamaanka waa imaan doonaan ra'iisul wasaareyaal hore imaan doona cid gaar ah waa intii siyaasadda ku jirto oo dhan waxay rabaan horta xasan sheekh maxamuud inay aqoonsi ka helaan maalmahan ma jirin madaxweyne aqoonsi laga helo midowga murashaxiinta la yiraahdo aqoonsi laga helo dhammaantoodna hadda waa isku hadaf gadaal dambe way iska qabsan doonaan siyaasadda noocaasa koo waa inay aqoonsi helaan labo ajendayaasha xasan sheekh maxamuud uu ximbaarsan yahay sida doorasho qof iyo coda iyo inay laalaan berin ay dhahaan madaxweynaha waa la kulannay doorasho iyo waxa anaga rabina nooga sheekeeyay filinkaana waa ku boodnay asaga muxuu rabaa marka inaa fahamtiin aan rabaa xasan sheekh horto laba jeer nin madaxweyne noqday nin sahlan ma aha meel dheer buu ka ciyaarayaa meel dheer intii fahmi karta siyaasadda horta xasan wuxuu rabaa haddii aadan madoobe beri diido hadduu soo kacay aadan madoobe filmaanta waayahan socdeene midowga murashaxiinta nimankan stakeholderada inta loo waco ee iyaguna diidaan waa ciyaar adag moogta labada beer markii laga diido xasan ha ku fikirin inuu go'doon galay marka asaga wuxuu rabaa caalamka inuu la dhil gareeyo oo yiraa aniga waxaan wacay stakeholderadii baarlamaankii waa horgeeyey waxaan ku yiri saan iyo saana qurux badan waa diideen marka talada waxay u taallaa shacabka Soomaaliyeed yaa had way ku bariyo Sooma afti waa la qaadaya marka taas maxaa ka horeeya marka talada shacabka iska macaali karto xasan markay labada diidaan dagaal uu aada horto tuuti inta xirto xasan muuse ha noqdo ama cali gaaf ha noqdo ama macallin diblaw ha noqdo ama cid kale ha noqdo dudubli iyo mursade uu dagaal galaya horta inta tuuti xirto markuu goboladiisa inta badan Soomaaliya xoreeyo buu leeyahay hadda ka hor baan stakeholderadii war wax waa adduun iga qorta baan casuumay baarlamaanka waa horgeeyay baarlamaan inay wax ka soo socon waa fiiriyay mar hore sahan loo diray waa la soo qiimeeyay moogta dagaal ma inta la galay xilliga hadda ka hor labadaasna waa casuumay wax ka soo naas cadaanayna ma jiraan marka Soomaali afti baa la qaadaya marka dalka xoreysto amni jiro afti buu qaadaya asay ku raacayaan marka way caalamkana ma diidi karo halkaas lagu dilay horta siyaasiyiintii oo dhan ama xildhibaanada noqdaan ama han noqdaan stakeholderada halkaas ka loogu siiyay shacabkii xasan was qaadanay ilaa shacab shabaab laga dul qaaday ma siisanayaan cid kale qodobkaas asoo fadhiyo waa ku dheeraaday baa faanteen intaana kala dhaxbax 8 daqiiqo waxa bari iyo bari dambe iyo mustaqbalka waxa iguma soo dago waxna iguma maseega war si share gareeya oo la gareeya wuxuu waa taariikh iska hadal mooy waya sidoo kale intaas kaga baxaya Umar Cabdirashiid iyo cabdulle gaas baa xamar maanta soo gaaray diyaaradda qalimatay ee hala laba diyaaradood oo hal shirkad oo hala leedahay ayaa yimid toodii waa bad qabtay shirkadahan Soomaaliya annaga ku dheeraan maaye jooma kiyanta ta kama degtaan banaankeeda ka degtaan adduunka meel ka degtaan male intee ba airport banaankeeda ka degtaan waa basas dadka Soomaaliyeed Allah badbaadiyo waa diyaarado basas ah waay diyaarada ma aha tasda ogtii hadii kale meel gaar ah lagu dijiyaa marka falaad imaaraad iyo dooxa iyo markay imaanayaan qadar airways iyo ma la degi kartaa ayaga waa basas oo Kenya iyo Ethiopia laga soo naxaa waa ilaa dalkan badbaadi rabbi raxmaano Umar iyo Cabdirashiid iyo Cabdulle gaas oo hore aan barnaamijkayga inta ugu sheegay waxay sheegeen muhiimadooda in isimada iyo inay rabeen inay la kulmaan laakiin muhiimadooda ay ahayd dastuurka Puntland inaan la furi karin 8 January in la aado doorashada Puntland nin waa garad Sooma laba qodob weey ragga stakeholderada aan in siyaasadda ka soo muuqdaan waxay ku cadeynaysaa saddexdaas qodob in iyaga iyo dani ay isku yihiin dab iyo basiin hadalka waxa laga dhaxbaxa ilmaadeerayaal dab iyo basiin oo Aranjan kale oo cusubba ay ku furmateen nimankan labadan nin waa laba nin oo miisaan weyn leh weey oo Puntland iyo Soomaaliyaba masiirkooda gacanta ku haayo niman la dhayalsan karo markay iska hadlayaan Umar Cabdirashiid laba beesaanina waayihiin waayahay dhankaas iyo gadana
qodobkii entertainmentiga waa ii harsan yahay jaan xasan sheekh saambay u socotaa ya saambay ka dhacday shaashka ka dhacay roob le guriga gatay entertainment ya laba hay dambayso ninkii maad salaad ahaa dad badan ay la yaabi doonaan maad salaad cabdiqaadir waa amaanay ma aniga qofka fiiri qodobaan ku diidaa qodobaa ku yeelaa waa nacasnimo qofka lama wada noco qofku wuxuu sameeyo guul ah waa la sheegaa anigu laan dheernimo intaas waa qanaa hadduu qaldamana waa la soo qabtaa waxay isla baa noqday maxal diblaawe halkan baa laga sheegaa 3 maxal diblaawe 4 maxal waa saas sharafta mahad salaad wuxuu ku guuleystay mareexaano way dhageysta in gado dhan gacanta uu ku dhigo nabad sugidiis gacanta bakaalka oo kale soo diro kuwa hal shirqoolo kuwa dhagax lagu tuuro waxay noqotaba mahad gacanta u qotay maxaa laga qoraa marka arintan doolow kaliya u dambaysa ugu balad xaawo oo luuq hadhihin oo hadhihin meesha la yiraahdo baar dheer hadhihin oo garbahaari hadhihin wixii dhan soo dhiibeenba wasiir dawlayaal iyo agaasimayaal ay qaybsadeen kulli aan jahnin la yiraahdo oo aad u diidan xasan sheekh iyo axmed madoobe oo mareexaanka garbahaari u sacabtu midreena doolow oo tagay maanta isaga ugu dambeeyay wasiir dawlad doona rabay nin la ilaa lafay halkaas degan oo Etoobiyaanka la shaqeysta airportka isla dhuuqan lafayga iyo Etoobiyaanka airportka doolow isla dhuuqan ayuu celiyay anjaxo wasiir dawlad iyo wasiir Jubbaland ka doona rabo buu xirtay by the way umada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego kiiskii gado waa soo gabagaboobay iyadoon dhiig ku daadan waxaana mahad iskale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala laakiin mahad salaad wiilkaas ayaan la gado waa ka dhax shaqeystay halkii kula najiis iyo farmaajo 160 qofood ay ku dhinteen gari isku hal meel gari Jubbaland isku raacin waayeen isagoo aan dhiig ku daadin wiil mareexaan aanan dhiman gabar mareexaan aanan dhiman baa inta gada la isku soo qabtaa Jubbaland inta lagu daray baa la leeyahay gado mashaariic hadii u bilaabanaysaa khayraadka dalku leeyahay hadda laga siinayaa laamiya loo dhisayaa maamul bay raacda hadda gado maamul waxaan dhiig kuma daadan mahadow salaama qodobkan laandara ka tahay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo ciidan oo daarood la yiraahdo oo aan kaftanno waa laga seexan waa Twitter Space Clubhouse TikTok qoraal comment jihaan xasan sheekh jihaan safar jihaan haruusiya badashay jihaan waxay badashay hebel horta jihaan xasan sheekh aadi sheego dad badan oo malaayiin ma oga war u si shargareeya war entertainment-gan iga gaarsiiya war entertainment-gan meel dheer ha gaaro horta jihaan ana caawa idin sheegaya waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaliya asaga walaashiis ma dhashay abtimu u yahay ma adeero u yahay asaa sheegay muwaadi waay asaa sheegay waxaan rabaa marka waa la taliya sare oo dhanka arrimaha dibadda Afrika daan maqashidii Asia meel walba weey horta gabadhaas gabar goofkeeda joogto waay gabar wax soo barto weeye inta xukunka xasan sheekh joogana waa fadhee waa raaxaysa gabar yar oo qurux badan oo wax baratay ilaahu isha bin aadanka ka haa rabbi raxmaan wallahi u duceeya wallahi inaan garanin weligii maqlin mana rabo inaan maqlo laakiin waa laandheer oo dhan waa isku dhiig jihaan farid dhashay gabadhii ugu horeyso qabiil ay ka sheekayaan goor reaction ka bixiyaan reaction jihaan saana u socotay jihaan way biibtay jihaan war jihaan aabaheeda hadlay war jihaan jaamacana garanaya ani i weydiiyo jihaan Egypt jaamacad ku taalabay 12 sano cimrigeeda haafba waa 20 jir 19 jir weey 12 sano wax baranaysa jaamacad intay hooyadeed aabaheed aragtay hataa ya intay hurdeysay hataa way yartay markaas adaga Twitter Space iyo waqti kaaga dhamaaday CBB adoo iskaga dhigtid gabar wax baratay intaas kaga gudbaya mar hadda qofka Ilaahay milga uu siiyay iyo magac iyo karaamo lagu ma dhago ka foq gabar garbasaarka gabadha ka foqa ilma adeerayaal daaroodo ka foqa waayahay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo maalmahan musuq xasan sheekh la dagaalanaa mud kan soo qabo miya qabo waxa isla miya qabo he don't care oday laandheeraha wi qabo soo gujire هذا حالة بالله CBB ده هربان إني الرابلة كديجان موتن الموسيقى هرت الرابلة يدي شيء هرت الرابلة مركي رئيس الوزراء فرماج وكديجاي مع توشير أو مليسين السبب الجاي نين يوان وشقين جل صدق السنة استوكم فري مريكان تجاي UN مالي واتجي
روش كان واتجي قرصان وتجي ورمال أوسنت سنغال ودولة ده وحكي لسه حكومة ده دبق حتى كسو قبضة دبق هدول نيروبي كده دبق ما يقال نيروبي كله أنا كله بيه معي نقطة دبق نيروبي اللي كده دبق جد كلاس كده سايو أبابور أرورور وحلا حتى لما يقال ها سابع يحضر إسكاله ما تقانين مركز على روبله دبق السنة وريال روبله نيشي السياسة دمكم إيمان رياضة ويل كاسعد سعيد ريلولي استجوا الشيد أو شاه الله شبو ما إيمان دل كان فرماجة أنت جيسا في شو ساعد قضية كالروب لك سقط مركز جوري نيروبي إسكاله فاس عد أسيق أبجورا بإسكاله هي نيو جورو كله نيو بو جورو كله هذا جوري لا تستوي واحد كشيء كنت تسكت أفتان روب لبدبادية دل كان بوكو سمديسين وحي بق ورنا لح سنة دل كان هاي ناي حنوصعد الشيء كذا باي